qabiilka la buufinayo asaagan ku beegsan mayne waxbartaan barwaaqo gaarne بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته markale kusoo dhawaada muuqaaladii taxanaha ahaa ee aan halkaa kusoo baahin jirnay ee ku saabsanaa maadada ingiriiska garaan grade-ka 8aad weliba waxaa ku jirnaa unitkii 6aad ee ahaa what's your job muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay fill in the gaps oo ku qoran page-ka 82aad iyo kan 83aad daawada haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay channelka waxaa kaa dalbanaynaa inaad nagu soo biirto aad subscribe inoo dhahdo haddii aad horey noogu soo biirtayna waxaa kaa codsanaynaa inaad muuqaalka laag noo saartid waa mahadsan tahay haddaba aan bilaabanno muuqaalkeenna ama cashirkeenna caawa isku soo noqod wanaagsan waa rajaynaynaa muuqaalka laag noo soo saartay dabcan wayna dhiirigelinaysaa inaad muuqaalka laag noo saartid haddii aad weli nagu soo biirin inaad nagu soo biirto aad subscribe dhahato isla markaasna gambeelkaa furtid si marka ugu horreysa aan muuqaalka soo gelino uu kuu soo gaaro marka haddii aan su-aalaha toos u aadno fill ku buuxi in the gaps meelaha bannaan in the sentences ee jumlooyinka ka mid ah with waxaa ku buuxisaa who waxaa loo isticmaalaa people dadkaa loo isticmaalaa which ayadan waxaa loo isticmaalaa object ashyaada ama shayga ayaa loo isticmaalaa where waxaa loo isticmaalaa place goobaa loo isticmaalaa sidoo kale whose waxaa loo isticmaalaa possessive lahaansho iyo sidoo kale muuqaalkan ka horreeya kusoo aragnay meesha whose in lagu bedelayo meesha maxaa la yidhahdaa his haar iyo there in lagu bedelayo whose su-aasha koowaad marka Roble okay home is in Bosaso is customs officer meesha waxaa laga hadlaya waa guriga Roble marka waxaan dhahaynaa waxaa isticmaalnaa maadaama guriga Roble laga hadlayo oo uu Roble leeyahay waxaa isticmaalnaa whose Roble whose home kaasoo gurigiisa is in Bosaso uu ku yaalo Bosaso is Roblas muxuu yahay a customs officer waa sarkaalka shaqadiisu tahay ilaalinta waxyaabaha waddanka soo galaayo dabcan ereyga naguma cusba custom waa sarkaal shaqadiisu tahay la socodka amaba inuu kontroolo waxyaabaha waddanka soo galaayo inta badanna wuxuu joogaa meelaha waddanka laga soo galo sida elboorada iyo dekedaha su-aasha labaad ee ku xigta Osman okay operates a big machine is a diamond miner Osman operates wuxuu ka shaqeeyaa ama ku shaqeeyaa a big machine qalab weyn Osmankaas muxuu yahay is a diamond miner waxa waaye waa soo saaraha diamondka diamond miner waxaa la dhahaa qofka raadiyo kana raadiyo dhulka hoostiisa ee soo saara diamondka marka jumlada waxay tilmaamaysaa ama qeexaysaa Usman is a person waxaa isticmaalnaa marka who waa isticmaalnaa Usman who operates Usman kaasoo ka shaqeeyo ama ku shaqeeyo a big machine qalab weyn yani qalab xajmigiisu u weyn yahay is a diamond miner waa raadiyaha ama soo saaraha diamondka su-aasha saddexaad Somalia okay Abdi Levis has a big diamond mine okay Somalia Abdi Levis waa meesha Abdi ku nool yahay haas waxay leedahay Somalia a big diamond mine meel weyn ama xajmigeedu u balaaran yahay oo diamond mine ah
oo laga soo saari karo ama laga raadin karo maxaa la yidhahdaa diamondka. marka waa place, waa goob hadday tahay waxaa isticmaalanaa where. waxay noqonaysaa marka Soomaaliya where waa halka Abdi Leefis uu Abdi ku nool yahay. Haas waxay leedahay a big diamond mine, meel laga qodi karo ama laga raadin karo diamondka. su'aasha ku xigta afraad ayadana waxay tahay dabcan the earth, dhulka. okay, olaad put onto a conveyor belt is examined for diamonds. okay, the earth, dhulka, yani dhulka waa place, waa goob. waxaa adeegsanaynaa marka where. okay, waxay noqonaysaa the earth, dhulka, where, halkaasoo ama dhulkaasoo, olaad qofka la dhahayo, put onto uu kor ka qaaday a conveyor belt, suunka wax qaado, dhulka yani colaad uu kor ka qaaday a conveyor belt, suunka wax qaado, is examined waxaa laga baaray for diamonds, diamond laga baaray. okay, the earth, dhulka, where, dhulkaasoo ama halkaasoo, colaad ama olaad, put onto uu kor ka qaaday a conveyor belt, suunka wax qaada ama suunka wax ximbaaro, is examined dhulkaas waxaa laga baaray for diamonds, diamond laga baaray. su'aasha sanaad ee ku xigto Salaah, qofka la dhahayo stops wuxuu joojiyaa the boats, doomanka ama doomaha, are traveling kasoo safraayo from Yemen, oo Yemen ka imaanaya ama kasoo safrayo. marka waxaan isticmaalaynaa which, because dooman waa objects, doomaha waa objects, wixii objects ah waxaa u isticmaalanaa which. waxay noqonaysaa marka Salaah stops, Salaah wuxuu joojiyaa the boats, doomaha, which, doomahaasoo ama kuwaasoo are traveling kasoo safraya from Yemen ama ka imaanaya Yemen. su'aasha lixaad Boosaaso. okay, Rahma life is on Gulf of Eden. Boosaaso, Rahma lives waa meesha Rahma ay ku nooshahay, is on Gulf of Eden waa gacanka cadan. marka waa place, Boosaaso waa place. waxaa dhaynaa marka Boosaaso where waa halka Rahma lives ay ku nooshahay, is on Gulf of Eden waa gacanka cadan. su'aasha nextiga ee toddobaad waxay tahay dabcan the people examine ku baaro the earth, dhulka, on the conveyor belt, suunka wax ximbaaro ama suunka wax qaado. dadkaas maxay yihiin ama maxay qabanayaan? are looking for, waxay raadinayaan diamonds, diamond raadinayaan. marka wax laga hadlaya waa people, waa dad. waxaa isticmaalaynaa marka who aa isticmaalaynaa. the people, dadka, who examine baaro the earth, ku baaro the earth, dhulka, on the conveyor belt, suunka wax ximbaaro ama suunka wax qaado, are looking for, dadkaas waxay raadinayaan diamonds, diamond raadinayaan. su'aasha u dambeyso ee sideedaad iyadana waxay tahay dabcan Rahma boat stop passengers boats is looking for smuggled goods. Rahma boat yani doonta Rahma stop waxay istaajisaa oo ay joojisaa passenger boats, doomaha rakaabka. Rahmadaas maxay tahay ama maxay qabanaysaa? is looking for, waxay raadinaysaa smuggled goods, alaab la tahriibiyey ama la soo tahriibinayo. dabcan meesha waxaa galaya marka waxaa galaya whose, because waxa laga hadlayo waa doonta Rahmo. whose waxaa loo isticmaalaan dhahnay possessive ama lahaansho. waxay noqonaysaa marka Rahma whose boat, taasoo doonteeda stop ay istaajiso passenger boats, doomaha rakaabka. Rahmadaas maxay qabanaysaa? is looking for, waxay raadinaysaa smuggled goods, alaab la soo tahriibiyey. sideedii su'aal dabcan ku qorneed page-ka 82 iyo 83 halkaas ay ku soo dhamaadeen. waan rajaynaa in la fahmay lana soo xasuustay. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. haddii ay tahay markii ugu horreysay aad soo booqatay janaalka,
waxaa kaa dalbanaa inaad nagu soo biirto subscribe inoo saarto haddii aa hore nagu soo biirtay inaad muuqaalka laag noo siisid waa maasan tahay ramadaan mubaarak assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu